buuraha calmiskaad kooxda argagixisada ee daacish markii dhowaan looga dhigay cashar lama ilaawaan ah ee dowladda puntland ay ugu dhigtay oo ay taageerayso dowladda maraykanka ayaase la sheegay in ugu dambeyntii ay ku kala firdhameen dowladda puntland ee dhexdeeda magaalooyinka waaweyn sida boosaaso garoowe iyo gaalkacyo ee buuraleyda ee halkaasi ayaa la sheegay inay halkaasi ku kala dhuuntay qaarkiina ay sii galeen badda iyagoo sidoo kalena maraakiib iyo duunyo ay qaateen ugu dambeyntiina ay isaga baxeen gudaha ee dalka Soomaaliya. waxaase la sheegaa in dowladda Puntland iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay u qabteen muddo 72 saacadood oo kaliya si Daacish ay isaga baxdo ama ba isaga soo dhiibaan inta ku hartay ee kaliya. waxaase la sheegaa in dhowr amiiro oo tirsamaya farkutirisa iyo sidoo kale ciidamadooda ay ku hareen oo kaliya Puntland iyo sidoo kale buuraha calmiskaad dowlad goboleedka Jubbaland dowlad goboleedka Puntland kuwaasoo la sheegayna in halkaasi ku dhumaaleysanaya iyagoo sidoo kalena qaarkii hubka ay iska tuureen sidoo kalena ay dhexgaleen bulshooyinka ku nool ee magaalooyinka ee Puntland. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa soo farigelisay iyadoo sidoo kalena ay sheegtay in Puntland loo baahan yahay markaan inay joojiso dagaalkii xoogganaa ay ku qaaday Daacish isla markaana loo baahan yahay inay qafiifiso arrinkaasi. waxaase looga shakaysan yahay maadaama Daacish sidoo kalena ay yihiin asaliyan kooxo ajaanib ay ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta ay maalgeliso ayaa soo muuqata haddana inay tahay iyadoo cidda doonaysa inay u damqiso kooxdaasi. Imaaraadka maadaama haddana ay tahay cidda Puntland gacanta ay ku hayso sidoo kalena ciidamo iyo mashaariicba ay iyagoo gacanta ugu hayaan ayaase la sheegaa inay haddana soo farigelisay arrinkaasi oo ay doonayso in Puntland si ay khafiifiso culayska ay saartay kooxda Daacish. waxaase la sheegaa in kooxda Daacish markii horeba banaanka ay ugu imaan jireen dowladaha oo dariska la ay ugu horeyso Imaaraadka waxay ka wax kasta iyagoo ay doonayaan si ay ugu kaaftoomaan halkaas loo soo marsiin jiray badda dhinaca Puntland ay ka soo gali jireen xeebaha bari sidoo kalena ay mari jireen buuraleyda ugu dambeyntiina iyagoo duurkooda iyo godadkooda ay ku jiraan ay heli jireen adeeg kasta oo ay u baahan yihiin. Puntland waxay sheegtay in waxa soo idil ay yihiin wax la soo dhaafay isla markaana ugu dambeyntiina aysan noqonayn wax soconaya. ciidamada daayarada kuwa looga yeedho ayaase la sheegaa inay halkaasi ay ciribtireen kooxdii halkaasi ku sugneed isla markaana ay baabi'iyeen. ciidamada daayarada ayaa ugu dambeyntiina sidoo kalena ay sii galeen god kasta ilaa ay soo qabtaan midka ugu dambeeyo ee halkaasi ku jiray. cabsi xoogan oo Daacish soo kala dhaxgashay iyo sidoo kale inay halkaasi ku kala firdhimaan ninka ugu sareeya ee kooxdaasi ayaase la sheegay in halkaasi uu ka mid ahaa dadka halkaasi uu joogay sidoo kalena uu ku noolaa balse markii dambe xogta la helay oo warbaahinno caalami ah ay sheegeen in halkaasi isaga cararay isla markaana uu dib ugu laabtay dalalkii uu ka yimid Ciraaq iyo Syria laakiin asalkiisu yahay qof Soomaali ah. cabsidan waxay gilgishay guud ahaan kooxda Daacish iyo sidoo kale inta wadanba ay ka kala yimaadeen oo ay taageerayeen maadaama ay jiraan hay'ado caalami ah oo taageero ugu horeyso dowladda Sacuudiga Carabta oo ay ka mid tahay cidda sida rasmiga ah sidoo kale ay u taageerto hub iyo saarad ay siiso. waxaase la sheegaa in ciidamadii Daacish la soo qabtay ay ka mid ahaayeen kuwa ka kala yimid dalalka Sacuudiga Imaaraadka wadamada Carabta oo kuwaas oo sidoo kale cadeynta laga helay ay ahayd inay heeseen baasabooro oo dalalkaasi ay u dhisheen iyo sidoo kale kaarar bangi ah oo caalami ah oo bangiyo laga leeyahay kuwa dalalka inta aan soo xusay ah. waxaase la sheegaa in Puntland ugu dambeyntii ay u soo gabagabaysay ciishkoodii oo ay ugu noolaayeen halkaasi gobolada Puntland iyo sidoo kale buuraha calmiskaad. yar iyo weynba reer Puntland waxay isku raaceen inay soo afjiraan kooxda Daacish isla markaana nafta ay u keentay halkaasi sidoo kalena ay ahayd halka rasmiga ay ku dhumaaleysanayaan maadaama adduunka oo idil oo weerar culus oo ba'an oo lagu hayo. waxaase u arkeen in Soomaaliya iyo sidoo kale halka buuraleyda Puntland iyo xeebaheedaba ay u arkeen meel ay ku munaafacoon karaan maadaama ay la sheegay in halkaasi ay tahay halka wadanka Soomaaliya uusan ka jirin nidaam dowladeed oo rasmi ah oo horumarsan oo halkaasi ku dhumaaleysa balse ciidamada daayarada iyo madaxweyne Saciid Dani ayaa hurdada u diiday kooxdan ku kala firdhintay imika Puntland. sidoo kale waxaa loo qabtay muddo 72 saacadood oo kaliya inay isku soo dhiibaan. waxaase la sheegaa in sidoo kale diyaaradaha sirdoonka iyo Mareykanka ay heleen
xogo rasmi ah inta hartay ee daacishta meesha ay ku kala sugan yihiin ee puntland iyo sidoo kale buuraleyda caalmiskaad kuwaasoo la sheegay in puntland ay heshay xog rasmi ah islamarkaana maraykanku ay siisay xogtaasi. puntland maxay u weerari laadahay ee halkaasi? waxaase la sheegaa in puntland iyadoo laftirkeeduba ay ka daashay ee dagaalka xoogan ay kula jirtay ee kooxda daacish islamarkaana aanu doonaynin in intaasi ka badan ciidamo aysan ugu dhiman, sidoo kalena ay doonayso in markaan inta dhimanna maadaama ay yihiin kuwo yaryar ay sheegtay puntland islamarkaana maraykanka ay xaqiijiyeen inay yihiin kuwo iyaga baqaya islamarkaana wax weerar aan ku soo tuubin. dowladda puntland waxay doonaysaa in iyagu badqaba ay isku soo dhiibaan ee puntland si kadibna la soo saaro maxkamadda oo awoodda u leh si looga maxkamadeeyo ee gudaha ee puntland. puntland waxay sheegtay in 72 saacadood kadib haddii ay soo dhiibi waayaan ciidamada daayarada ay godadkoodii ugu gali doonaan kooxda daacish islamarkaana ay u soo qaban doonaan kadibna ay horkeen doonaan maxkamadda awoodda u leh, taasoo ugu dambeyntii cawaaqib xumadooda ay noqon doonto in lagu fuliyo xadka qasaasa dil toogashaha maadaama ay yihiin argagixisyo ay ka kala yimid ee wadamada carabta iyo sidoo kale wadamada ajaaniibta ee kuwo qaar oo yurubiyaanka ay ku jiraan. cabsi xoogan ayaa soo wajahday cid kasta oo taageeraysay ee kooxdaasi, sidoo kale bangiyadii caalamiga oo ay ka lahaayeen adduunka ay ugu soo shubi jireen lacagaha ayaa laga xiray gebi ahaanba, sidoo intaasi oo laga kansalay taasi oo noqotay cabsidii ugu weyneed oo ay kooxda ay wajahdo. ilaa iyo iminka kooxda daacish ayaase ugu dambeyntii ka kala firdhintay iyagoo war rasmi aanba laga helayn. markii horese halkiise ay soo booqan jireen warbaahino caalami ah kuwaasoo ugu iman jireen buuraha calmiskaad iyagoo sidoo kale hadli jiray warbixino halkaasi looga samayn jiray. iminka waxaase la sheegaa in bartoodaba la waayey halkaasina ay ku qarsoomeen maadaama aan loogeen halka rasmiga ay ka dambeeyaan maraykanka mooye. puntlandna ay u qabatay sidoo kalena ay sheegtay ciddii isoo dhiibta suuragal ay noqon karto in cafis ay helayso, ciddiisa lagu helase ee dembi waaweyn inay hore uga gashay ee dowladda soomaaliya sidoo kale ee puntlandba ay mari doonto cawaaqib xumadii iyo sidoo kale ciqaabtii loogu talagalay oo inay horgeeyaan maxkamadda awoodda leh, sidoo kalena la ciqaabo sidoo ay u badan tahayse in lagu filiyo xadka qisaasa ee dembiyadii ay ka galeen ummadda iyo sidoo kale ummadda iyo dadka. halkaa ay u yimaadeen ay sheegayaan inay u yimaadeen ee jihaad waa been oo halkaana jihaad loogama baahna. dalalka ay ka yimaadeen ay ugu horeyso sacuudiga, carabiga iyo meelaha kale ay ka yimaadeen ayaa halka loogu baahan yahay ee jihaadka. waa hadallo ay ka soo yeedho qaar ka mid ah ee shacabka puntland kuwaasoo ay sheegeen in halkaani ay tahay meel aan looga baahnayn jihaadka islamarkaana ay degan yihiin dad muslimiina. kooxda daacish waxay ka kala yimaadeen dalal ay joogaan ajaaniibta oo sidoo kale iyo dalal ay joogaan ee kuwa iyagoo sidoo kale waa isku diin ahayn ay ku nool yihiin haddana ay isku yihiin raalli ayna ka yihiin dalalkaasi ee muwaadiniin, laakiin taa beddelkeeda waxay u arkaan in halka dhulka soomaaliya imaadaan dadka muslimiinta halkan joogana ay halkan ay ku laayaan. puntland waxay sheegtay in sharciga ay la tiigsan doonto siday u banayseen ee dhiigga islaamka iyo sidoo kale dhiigga soomaalida muslimiinta ay puntlandna ay u banaysan doonto iyo ciidamada daanyarada ay sidoo kale u beegsan doonaan ee kooxda daacish.